wasiirku xusho waxyaabo ugu daran oo aan faa'iidana lahayn soo dhoofsada waxa kamid ah qaadka iyo shirkiga jira waxa kaga jira madaxda la rabay inay trade imbalance Soomaaliya saxaan qaadka xal uma hayno saddex meelood meel dakhligana soo gala in qaad lagu bixiyo subaxii warqad la daadinayo wax la aqbali kara ma joojin kartid gabar 9 cunug haysata qaadka jooji ma kula fahmayso maxay la miiska waa inay qada u saartaa kalluumaystada Soomaalida pressure-ka ugu weyn waxa ku haya illegal fishing maraakiib waaweyn oo vessels waaweyn wata oo shabaagii wata burburinay hadda inaga Puntland dadka caqligooda la caayay ayaa loo waxa la 18% oo kororta السلام عليكم ورحمة الله waxaan rabaa inaan marka hore salaamay fikraan iyo wasiir cali iyo caawa marti ku ah iyo dadka soo qayb galay anuu su'aalahaygu waa laba kooban horta mushkilada Soomaaliya haysta dawaa bukootay marka dawada wax lagu daweeyaa u baahan inaan helo adduunka wadan shaafta ku jooga ma jiro Soomaaliya jidha dhaqaalihiisu kuma filla amnigiisu kuma filla wuxuu ku filayay ma jiro dawladda Soomaaliya ka jirta saasita waaba kibiraaba meelaha markaa ka hadalnay madaxdeena iyo baalka tan ugu daran waxa weeye wasiirku xusho waxyaabo ugu daran oo aan faa'iidana lahayn soo dhoofsada waxa kamid ah qaadka iyo shirkiga jira waxa kaga jira madaxda la rabay inay trade imbalance Soomaaliya saxaan oo importigan badan ee banaan ka imaanay exportigooda bato si dhaqaaluhu ma profit noqoto sidee lagu keeni kara Kenya ama ka gadan qaadka dadkeena oo dhan baa cunay wax u dhigma wixii at least aan u geyn karo si looga shaqeyn kara ko tan labaad kalluunka sectorka cali si fiican uga hadlaa kalluunka saabsan iyo blue economy aad loogu guuro hadda Soomaaliya xeeb dheer bay leedahay kalluumaystada Soomaalida pressure-ka ugu weyn waxa ku haya illegal fishing maraakiib waaweyn oo vessels waaweyn wata oo shabaagii wata burburinay qaybtooda waxa la siiyaa license waxa la siiyaa wasaaradda dawlad goboleedyada iyo tan dhexe lacag baa laga qaataa ninka kalluumaystaha miskiinka xeebta jooga xogaa la soo baxay mid baa buug la fadhiya cashuur la daba jooga hadduu soo saaro xogaa yar dul soo baxay lacagna wuxuu ku qaadanayaa inuu mid shariifaya uu license siiyo wuxuu qaadanayaa soogeyn aqoon ahaan uu soogaan karinba haddana waxa soo baxday in dawlad lagu wareejiyo Soomaaliya iyada kalluunka mid Turkiga iyo hawlo kale